بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد adeer marka ugu horeysa in ilaa weyn la raajicoon waxaan tacsi u diraynaa dadkii ku geeriyooday qaraxaas soo socon heeladoodii iyo ummadda Soomaalida waxaan ilaahay uga baryaynaa dadkii ku dhaawacmay ilaahay inuu booqayo qaraxaasna waxaa ku dhintay 3 nin oo 2 xildhibaan iyo nin askari ah waxaana ku dhaawacmay 7 xubnood ayaan hore haynay qof kala soo baxay 8 xubnood sideedoodiina waa la qaaday waxaa loo qaaday dalka Itoobiya magaalada madaxda Addis Ababa oo arrimo caafimaad loogu qaaday ninka dhintay oo ciidanka ah ayaa joojiyay ninka markii la joojiyana wuu isqarxiyay marka xildhibaanada cabaad u jiray kolqooyinka ugu sokeeyay ayay ahaayeen kuwa dhintay iyo inta dhaawacantay in badan way badbaado ma dhaawacmin runtiina dhammaantood caafimaadkooda wuu fiicnaa lugahooda ayay ku socdeen gudoomiye goorma ayaa la qaaday marka dhaawacaasi oo loo qaaday dalka Itoobiya maanta la qaaday qaraxu waa dareemi kartaa oo galabnimadii buu dhacay marka maalinimo lama soo dooni karin intii ka dhiman habeenimo lama soo dooni karin marka saakay ayaa la qaaday oo diyaarad loo soo diray lagu qaaday marka diyaarad gaar ah lagu qaaday mise diyaarad rakaab ah may diyaarad gaar ah lagu qaaday diyaarad gaar ah loo soo diray lagu qaaday yaa u soo diray diyaaradda adigu dawladda ku meel gaarka ah baan codsanay marka iyada ayaa u soo dirtay xagga dawladda ku meel gaarka ayaana loo soo diray diyaaradda marka diyaaraddaas waxay geenaysay magaalada Addis Ababa adiga waxa laga yaabaa in ay geyso meelahaas dhexe oo ama Diridaba iyo Jigjiga iyo meelahaas laakiin dawladda Itoobiya waxa noo sheegtay in diyaarka u soo diri doonto oo taas dhex uga wareegi doonto guud ahaan adiga meesha uu la geenayaa waxa weeye waa Addis Ababa insha Allah marka diyaaradda ma Itoobiya lahayd maya ta qaaday Itoobiya ma lahayn waa diyaarad kale oo dhanka xabad laga soo diray laakiin waa suuragal in mid kale oo dawladda Itoobiya leedahay dhex looga qaado diyaaradda dhex looga rogo markaasi la qaadayay markaasi dadkaasi mas'uuliyiinta ah ee ku dhaawacmay qaraxa shalay xaaladooda caafimaad siday ahayd aad bay u fiicneed waxaan dhihi karaa adiga 60% way fiicnaayeen dhammaantood runtii way socdeen oo wax hadda jabeynaysa ma jirin laakiin waad ogtahay oo qaraxu wuxuu leeyahay suntaas oo kiimika waxbay ku daraan marka cabsi naga haysa kiimikadaas in ay maaragtay dadka dhib dambe u geysato mooyaane runtii dhaqaatiirta meesha joogta way booga dhigi kareen dhibaatooyinka hadda gaaray marka intii ay shalay dhuusamareeb yaaleen ee qaraxa kadib ma waxaa jiray dhaqaatiir iyo kalkaaliyayaal caafimaad oo caawinayay oo goobta joogay markiiba gurmud baa la sameeyey dadweynihii dhammaan iyo ciidanka ahlusunna wal jamaaca iyo dhammaan adigu si maaragtay meeshii baa la xiray dhaawacii baa la qaaday dhakhtarkaa la geeyey si ku meel gaara ayay iyaguna u caawiyeen kabacdina dhakhtarka weyne gudaceel baa loo gudbiyey adigu wixii teer iyo xalay saakay iyaga ku hawloonaa marka saakana waa la sii qaaday marka marnaba lagama maqnayn marka bal waxaad iiga warantaa deegaankan waxa ka taliya ururka ahlusunna wal jamaaca qaraxana waxa sheegtay ururka al-shabaab inay fuliyeen baaritaan baad dabcan samayseen maxaa idinka soo baxay baaritaankaasi marka waxa lagu gooleystay in la ogaado ninkani meesha uu ka yimid iyo waxa uu yahay iyo magaciisa marlabaadna waxaa la dabagalay ciddii gacan ku siinaysay marka dad badanna waa loo qasay baaritaankiina ugu socdaa ninkeena wuxuu ahaa nin magaciisa la yidhaahdo Maxamuud Artan Cadaawe Culusow oo maaragtay Muqdisho ka yimid ceelasha biyaha gaar ahaan waxaa looga soo dhiibay oo ugu soo koogareeyay oo lagu soo duray waxay dadka ku diri jireen gobolka wuxuu joogaa muddo 4 maalmood ah saacada ka hor ayuuna degmada soo galay oo qaraxa sameeyey dad badan oo loo hayana way jiraan runtii xiran oo aan filayno inay gacan ku lahaayeen facility-ga arrinkan inuu fuliyo oo xataa dadka ay wax tusay sidaa daraaddeed baaritaankaas markuu dhamaystirmo ayaan soo gudbi doonaa insha Allah wixii soo baxa waxaan laga yaabaa dad ganacsato ah ama haysta dhalasho wadamo kale inay lug ku yeeshaan xagga dhaqaalaha ay dhamaato arrin kale ayaan soo gudbi doonaa insha Allah wixii marka sideed ku hesheen ilaa hadda magaca qofkan iyo goortii uu yimi iyo saacadaha uu soo galay deegaanka Dhuusamareeb intaba waa la helay xogtaas oo dhan waa la helay sideed ku hesheen baaritaan kale kama dhici mayno runtii markii la soo gabagabeeyaan soo wici doona insha Allah u sheegi doona saxaafadda maadaama deegaankan idinku gacanta ku haysaan goldaloolooyinka iman kara ma dad deegaanka aba
taabacsan ururka al-shabaab oo gacan siinaya howlgallada ay fulinayaan mise waxaa jilicsan amniga iyo sirdoonkiina? shacabka runtii wax taageero siya ma jiraan nimankaan, laakiin waa laga yaabaa qof fikirkooda aaminsan inuu ku jiro oo isgarinaya. marka ciddii cid taageero siisaay waa un cid fikirkaas aaminsan maahane cid kaloo taageertaa ma jirto. dee dadkiina lalaagtiis cad lagu helo maaragtay anagu maaragtay raasha ma saarno. marka dee wixii uu marba kusoo baxa dembiguna maxkamad un ku heli doonaa insha allah. kaasi wuxuu ahaa maxamed yuusuf xeefow, guddoomiyaha golaha fulinta ee ururka ahlusunna waljamaaca oo galabta khadka telefoonka iigu warramayay.